cisbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo ayaa maanta laga daahfuray xarunta kaydka dhiigga oo lagu soo kordhiyay cisbitaalkaasi. Xaruntana lagu kaydin doono noocyada kala duwan ee dhiigga bukaanadu sida degdeg ah ugu baahan yihiin. Ayaa waxa halkaasi dhiigga kaydka la dhigayo lagaga shubay maanta. Badiba mas'uuliyiintii dawladda oo ugu horeeyay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro. Agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Ceerigaabo Axmed Yuusuf Maxamed oo ugu horeeyay halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay adeegan cusub ee ay ku soo kordhiyeen cisbitaalka iyo adeegyada kala duwan ee cisbitaalkaasi laga heli karo. Waxaanu saaka halka ku daahfuraynaa baankii dhiigga. Waxa Ceerigaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag baahi badan ay u qabeen inay helaan kaydkii baanka dhiigga. saaka waxaanu ugu bishaareynaa bulshooyinka reer Sanaag in laga bilaabo saaka ay u furan yahay ama loo hayo kaydkii dhiigga. waxaan kaloo bulshooyinka reer Sanaag aad iyo aad u sheegayaa in caafimaadkii iyo cisbitaalkii guud ee gobolka Janaal Rifalka ama cisbitaalkii guud ee gobolka uu u furan yahay 24 hours qayb kasta iyo wax kasta ay tahay waad kasta ay tahayna u shaqeynayo sidaa darteed waxa weeye waxaan leenahay in ka faa'iideysano caafimaadku waa qaali guud ahaan aynu xaaladaha caafimaadka si toos uga warhayno annagu hadda gacanta ku hayna laakiin waxaan u baahanahay in la toosiyo oo dhaliisha iyo halkaas rabay wax laga qabto had iyo goor waxa arka dadka dibadda ka joogay taladiina aanu diyaar u nahay horumarkiina iyo wax soo jeedintaanu diyaar u nahay bulshadu caafimaadkeeda ha la socoto meeshii wax ka toosin u baahan ha la socoto meeshii toosanna ha lagu hambaliyeyso isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay adeegan cusub ay maanta daahfurayaan iyo olole uu sheegay in si tabarucaad dadka dhiigga looga shubayo oo bariyahanba ay ku hawlanaayeen. waxaanu halkan ka bilownay olole guud oo jiray oo ahaa in dhiig tabarucaad lagu bixiyo teeda labaadna waxaan fursadda raacinay kaydka dhiigga ama loo yaqaan blood bank oo mudaba cisbitaalka guud ee Ceerigaabo soo jiitamayay ama aan dhamaystirahayn shuruudihi oo dhamaystiran maanta wuxuu yahay haddii la ka dhigo waa kaydka dhiigga oo dhamaystiran waxaan kelmadeydu ay tahay oo aan gudbinayaa dhammaan gobolka Sanaag siiba degmada Ceerigaabo inay si tabarucaad ah ay dhiigga ku bixiyaan jaamacadaha ardayda cid kastoo bulshada kamid ah inay yimaadaan looga shubo waxyaabaha aan ogay waxa kamid ah dhiiggu noocyo badan bay leeyihiin qaar baan laba helinba marka hore la sii shubo ay yaalaan waxay fududaanaysaa hooyo meel fog laga keenay in markaba dhiigga talaagada looga soo saaro oo dibadana la siiyo. ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro. waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan isuduwaha iyo shaqaalaha cisbitaalka iyo agaasimahooda cusub waayo hawl in badan ka xidhan Ceerigaabo maanta u fureen waxa weeye dhiig shubidiisu waa naf badbaadi wuxuu kaloo leeyahay waa afdal sadaqa la bixiyo waxa ugu wanaagsan dhiigaaga oo qof islaama oo dhiig baxaya oo shubtood ku badbaadisa sadaqaadka ugu waaweyn bay kamid tahay ardayda jaamacadaha ciidamada qaranka dadweynaha intaba waxaan ku dhiirigelinayaa si aynu yeelano kayd wax dhici doonaan la oge inaynu iska shubno dhiigga oo dadweynaha reer Ceerigaabo intooda caafimaad qabta intooda jiifta ay ugu gargaarto inay dhiigooda siiso. Yunis Sheekh Ahmed Universal TV Ceerigaabo.